حكومتنا inay ka qabato arrimaha amniga tallaabooyin cad waad aragtaan maalin walba in la istaajinayo baabuur dad Soomaaliyeed isku qarxin rabo waxa laga sii qaadi doonaa tallaabooyin cad waad aragtaan cashuurtii dalka laga qaadayay inay korortay oo ay ku korortay qasnada dawladda si mushaarka loogu bixiyo waad aragtaan adduunyada qaabkay dawlad dhaqmi jireen inay soo ifbaxayaan tallaabooyin inay wax iska bedeli rabaan waad aragteen dunidu inay diyaar u tahay inay ku shaqayso talada ummadda Soomaaliyeed waad ogtihiin xukuumaddeeda in ay halka ku tahay in la isla xisaabto haddii aan rabno inaan ka baxno dhibaatada waa inaan ka leexanaa dariiqyada dhibaatada nageeyo sidaas daraadeed waxaan ka codsanayaa laba arrin kow sida ugu wanaagsan oo aad ku heli kartiin haddii aad tihiin reer banaadir xuquuqda aad tabanaysaan waxay tahay idinkoo isku duuban inaad garab istaagtaan maamulka gobolka banaadir fariintaad bataan inaad annaga noo soo gudbisaan idinkoo soo maraya isaga anna waxaan idiin ballan qaadayaa aniga iyo madaxweynaha iyo xukuumadduba inay la shaqayn doonto garab istaagi doontana guddoomiyaha gobolka banaadir aan soo magaalada tan labaad aan rabo inaad ka codsado waxa ay tahay waa inaad ogaataan bulshada meeshaad uga jirtaan waxaad tihiin dadkii reer muqdisho waxaad tihiin odayaashii qabiiladii madaxdii siyaasiyiintii dumarkii dhallinyaradii reer gobolka banaadir waxaad tihiin astaantii ummadda Soomaaliyeed fiirsanaysa waxaad tihiin dariiqa ummadda Soomaaliyeed wanaagga ay ku mari lahaayeen waa idinka tallaabada idinku aad qaadaan ayay ku daysanayaan shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa marna inaadan iloobina mas-uuliyadda aad xambaarsantihiin muqdisho iyo banaadir keliya waad ka weyntiin waxaad tihiin shacabka Soomaaliyeed iftiinka ay fiirsanayeen haddii aad rabtaan Soomaaliya markaa inay isku duubnaato koow waa inaad isku duubnaataan haddaad rabtaan Soomaaliya dawladnimo inay ogolaato idinku waa inaad ogolaataan haddaad rabtaan Soomaaliya inay ku dulqaadato idinku waa inaad ku dulqaadataan haddaad rabtaan Soomaaliya inay karafta iyo sharaamadeeda soo celiso waa inaad ka bilowdaan inaad aqbashaan dadka reer muqdisho oo dhibaataysan in sharaftooda iyo karaamadooda soo celiyo gudoomiyihiinu waxa uu joogaa wax ka yar 60 maalmood waxaad u baahan tihiin inaad siisaan waqtiga uu u baahan yahay oo ku tijaabisaan si uu soo celiyo xuquuqda aad rabtaan idinkana ummadda Soomaaliyeed idinkeena fiirsanaysaa haddii ummadda Soomaaliyeed idinka aragto cabsi aad ka qabtaan dawladnimada tafaraaro dhexdeeda walwal horumar la'aan marka waxa u soo baxaya dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan sawir ah in dawladnimadu ay aad u fogtahay ana idin sheegay dawladnimadu way dhowdahay dawladnimada iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed iftiinkeedii baa muuqda sidaas daraadeed waxaan maanta idinkugu imid inaan idin mahad celiyo sida sharafta leh oo dalkan ugu soo dadaasheen
إيجين أوصو هرتان حوجي حوالة أوصو بحسان حان الله يا لكن وحالين صوت التليفون قدام بي حجبتان طلابوي قدام بي وقد الصوماليين اللي بعطوه بحالا ويستاغ قرن لماذا الصوماليين كان يستاغ قدوميهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته